kusugaya sonoqo ado nabada 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 xaflad heer sare ah oo lagu sagootinayay suldaan maxamed nuur cusmaan suumaaye ayaa lagu qabtay bartamaha magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. xafladan oo ah qada sharaf waxaa soo qabanqaabiyey gudoomiye daa'uud cali xasan caydi isku xiraha soo dhaweeyaha bulshada magaalada Rochester ee gobolka Minnesota waxaana ka soo qayb galay xafladaasi akhyaarta magaalada Rochester sida aqoonyahanka daraasatada culimaadudiinka iyo abwaanada magaalada Rochester iyo bahda sportska. suldaan maxamed nuur cusmaan suumaaye waa shakhsi maamuus iyo qadarin ku dhaxlay bulshada gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Rochester oo uu ka shaqeeyo. waa xildheere dhinaca iibinta guryaha real estate oo wax badan ka soo shaqeeyey tan iyo burburkii Soomaaliya wixii ka dambeeyey oo uu ku noolaa waqooyiga Amerika. waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan aqoonyahanka culimaadudiinka iyo abwaanada Soomaaliyeed ee soo dhaweeyey waxaana uu horeyntii hadalka furay daa'uud cali xasan caydi. meeshaan isugu yimaadeen inay sagootiyaan walaalkooda maxamed nuur cusmaan annagana waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan oo diiran aan kusii sagootino walaalkeena maxamed nuur suumaaye akhyaarta meesha soo qayb gashay iyo gabadha walaasheena oo meel dheer nooga timid fartuun aad iyo aad ay u mahadsan tahay meel dheer ayay nooga soo daraab garaysay si ay walaalkeeda ugu qayb gasho sagootintiisa. abwaankeena cabdulle maxamed xasan cabdulaahi xaaji guuleed xakinkee maxaa la dhahaa looyarkeena sakariya cabdulaahi gacal axmediya askari iyo siyaasigeena cumar sheekh cali intiina waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan hadalkeena soo koobno maadaama muddo aan wada meeshaan waqti aan fadhinay waxaan rabaa inaan kusoo wareejiyo iimaankeena axmed islaaw iimaanka muduloodka iimaankeena magaalada waxaan rabaa inuu si oo diiran kusoo dhaweysiin. awalan waxaan kusoo dhaweynaa magaciina walaashay fartuun oo aan u arko inay tahay qof aqoonyahan ah qof geesiyad ah. dalkii Soomaaliya waxaa burbur weyn ka dhacay gaar ahaan wuxuu aad u saameeyay haweenka iyo carruurta ayaga carruurtii la qaxeen ayaga meel kasta la degay god iyo doom. fartuun dadkaas ay kamid ah ka soo dhaxbaxday magaaladan ayay timid. walaashay fartuun waa soo dadaashay xagga tacliinka تعليم بدني صبرتي أو كده شيء ما عرفتي حاجة مانجمنت كاس إيشك تبرجاس بالحقيقة أدي هذا مفرح سنة بواك تاسيت طلبات وجدد ما أنت جوجشان إيميس كان وحواي ولكن ومحد أي سفر وحكى لي عن ذيكر نوحة ومحاذو إلهي سفر كاس نمد عفوا الله كوجي إلهي أظن نوضح أو خير قبل الله كسوع علشه أنت سبحان نوصل الخير الله كسيه أو بحد يو جورجيس الله بركيه والدك للي الله بقضي هايدي سي أبيس وضد خير قبل هاين الله قلنا حريسته أو بحد لبا أن إله وبريا ماشان جوشان فردينا إن دعوة اسكو درسن إلى الرسول كحير ولالكيو أبو بكر عمر بن الخطاب نوسو الدعاء ولالكيو دعوذنا الوداج إن الدعوة إلهنا الوداجي أو محاد إن إلهي بيت الله الحرام جي أسو حجي الله أكس آمين ده الله سي آمين ده أمور تordن الله توفيق لنا الفجي
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maca islaamiinta iyo qadada sharafta leh ee loo sameeyay Soomaaliya walaalkay ilaahay ha nabadgeeyo ilaahay ku soo nabad celiyo aad iyo aad u mahadsantiin kulli intii ka soo qayb gashay oo dhan iyo asxaabta magaalada Rochester ما شاء الله وحرجينا يا إن النبض نوصل نقطة ولا thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. ما أنت عن اسكوون نمد روتشستر مطعم كان ساس أوفيعا وما أنت نوع عزيمي ولا الكينا عيديد ووحلو وفر حواي ويو وحن سقوتنينا walaalkayna oo aan jecelnahay maxamed shumaay oo ah nin oo maanta suldaankayna ah waayo anigaas waxaan ahay reer Shangaani aan ahay marka koow islaawga waa islaawgayna waa islaawa Shangaani marka waxa waaye waa ku faraxsanahay waa Suumayna waxa waaye ninkii i kormeeray waaye Bondere ha marka waxa waaye shay lagu farxo waaye ku jira bilaajo hoosteeda Bondere aan ku jira bilaajo hoosteeda Bondere marka waxa waaye ma laga boodi karo aniga walaalkayga inaan aan ka baaqdo waa ii ahaan kari weyday marka waxaan ku leeyahay sama ilaahay kugu geeyo ku soo noqo adiga oo nabad ah Rochester noogu soo noqo iyo xaasko uur leh noo imaaw insha Allah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaq walaalka Ciidid oo intaanu dad amaanta isu keenay si macnihii walaalkeen Soomaali oo baxayo in la sagootiyo waxaan u suurto geli waa Ciidid waa nin odayo magaaladan dadka odayaasha magaalada degan kamid ah isla markaasna fariyo badan oo fara badan macnihii ma taqaanaa ii sheeg dadka deegaanka ama magaalada u sameeyay waayo waa ku mahadsan walaalkeen Soomaali asagana sida uu imaamka sheegay waa Cabdiqaadir Nuuraani sheegay waa ilaahay hasama geeyo waxa la wuxuu jecel yahay ma taqaanaa wanidiisan ilaahay maartii sheegeen hasiyo runtii waa nin oday asagana magaalada kamid ah odayaasha magaalada kamid ah nabadoonnada magaalada kamid ah waa sii dhaweeyayna ilaahay waxaan rajaynayaa soo khayr qab inuu noo soo noqdo Soomaaliya walaalkii waa igu weyn laakiin anigu waalidkiisa hortaas ma ogtiin horso bayna waalidkiisa ma ogtiin عمر شعر مو إسلام أقول لك أوجي أنا إسلام ثم أنا والد سارقة مركا يا مركا وما سنتين وبالله التوفيق marka hore waxaa mahad leh Ciidid oo fadhigan qabanqaabiyay marka xiga waxaan suguntinaynaa walaalkeen oo baxaya Soomaaliya oo safar u ah Nairobi waxaan leenahay sama ku tag sama ku soo laabo salaamu calaykum waxaan u nimid walaalkeen Maxamed Nuur Soomaali oo safar ah waxa ilaahay ugu barinay inuu ilaahay salaam ku geeyo oo sama ku soo noqdo azumaadana waxaan noo fidiyay Ciidid aad iyo aad u maasantiin kulligiin waxaan joognaa magaalada Rochester Soomaaliya agteedu waa nin khaalika ah waa ninkii welcome-kay asikali ugu soo dhaweeyay Rochester marka wax weyn buu leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على غير الله سيو محلينا ولكن Ciidid oo lagu martiqaado sida caadiga wadayga magaalada oo martiqaad soo dhaweyn iyo sagootin iyo kulli isku keenay meeshan marka walaalkeena waxaan waa u duceynay islaamka u duceeyay annagana waa u duceynaynaa saaxiibkayga qaaska ah oo gaarka ah suldaanka maxaa la yiraahdaa insha Allah soo nabada ilaahay soo cesho si socod si aad ugu faraxsanahay bismillaahir rahmaanir rahiim لما ندرك ماشي سكوبي أصلاً واحد ير ولا أود عينه دلكني يدكني أنا كسرت تجني أو محوها يا حرق دباتين فربنا يكجران يكاد عين هذا كار هذا أنا ولي سيدي سكوسون نقارن
walaa u wada duceyna hal mar tan kale waxaan soo watinaynaa saaxiibkay Sumay oo u safri doono safar gaaban Afrika gaar ahaan Kenya sidoo noo sheegay inuu sii dhaafi doono noomu sheegin laakiin asagana waa sii soo watinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo dadkeena iyo dalkeena iyo caruurteena iyo haweenkeena Allah noo xafido siba haweenkeena waayo intanadan waxaan ka soo yaacnay warshadaha haweenkan ka soo yaacnay intanadan meesha fadhido dhan qof aan habar dhalin naguma jiro marka haweenkanaga Allah noo xafido intaas aan ku soo gabagabaynayaa wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh wa salaamantiin anoo Maxamed Cusmaan Nuur Suumaaye wada salaamaya maanta waa mahadsantihiin maadaama si fiican la ii soo dhaweeyey waan safar ahay dad badan ay soo dhaweeyeen qabqaabinta waxaan iska lahay walaalkayga yar Ciidiid dadkoo dhanna maanta waqtigooda waa isiiyeen waa yimaadeen Fortune walaashayga yar oo mataqaanaa author mataqaanaa writer wana la joogtaa from Minneapolis insha Allah marka warkii aad ku badan waa mahadsantihiin safar aan ahay wadada daarmaya insha Allah wadanka waxweyn waa aragteen qolooyinkan hadda magacooda ba sheegi kar laakiin aniga magacaan u bixiyo waxaan u bixiyo cali barafaan u baxshay waa garateen baraf waa taqaaniin macnaha waxaan ka wado hal lees ilaaliyo waxba yaa lala dagaalamin qofkii mataqaanaa ayagu waxay rabaan intimidation inay nagu suubiyaan oo mataqaanaa waxa lagu tuuro yaan la suubinin yacni peaceful ahaata meesha qofkii la yidhahda ID-gaada keen ha tusiyo waa dad awood ilaahay ah siiye ilaah waa awoodda iskale waa naga xoog badan yihiin marka insha allahu dadkii yimideen waa mahadsantihiin dad badanaa meeshaa yimid abwaanka ag fadhi lama xisaabi karo Ciidiid koojka islaawga Cumar Sheekh Cali saaxiibkay xagga waxaa fadhiya mataqaanaa Axmed Askari ilaahay kuuraya Zakariya kul waa badan yihiin bood kul insha allahu Shariifka Maxamed Nuur Cabdulle kul waa badan yihiin insha allahu Taaha Maxamed kul waa badan dadka lama sheegi karo Cabdi Gooye dad badanaa maanta ka soo qayb galay insha allahu marka safar salaama iska warhaya insha allahu khair waana mahadsantihiin haddana islaawgan u dhaweeya iimaanka islaawga bal asla ha duceeyo hanoo duceeyo insha allah alxamdulilah sanaa salaam calaa rasuulillah yaa arxam araaximiin yaa rasaaq yaa fatax yaa jabaar yaa maalikul mulk ilaahu dalkaan nagu badbaadi aniga carruurteena inta muslim oo dhan ilaahu nagu wada badbaadi ilaahu baadilka iyo fusqiga iyo dhexdeena ilaahu ka bix caloosheen ilaaha saafi ilaahu dalkeena soomaali allah badbaadiye midnimadeena allah na mideey ilaahu soonka iyo salaada iyo cibaadada ilaahu naga aqbal yaa arxam walaalkeena safarkii safar salaam allah ka dhig ilaahu meeshaan isugu nimid ilaahu waxaan kaaga baryaynaa nacafi waxaan sheegnay iyo waxaan ku gafnay hadallada aan laayiq ahayn sal allahu calaa maxamed wacala saxbihi Somali Rochester Media.